Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka dhaca aagga ugu muhiimsan ee gobolka Geeska Afrika. Inkastoo laga dad badan yahay haddana goobta uu dhaco dalkan ayaa u yeeshay qiimo gooni ah. Ku hardanka quwadaha dunida ayaa si weyn u soo shacbahay xilligii dagaalkii qaboobaa ee dunidu u socday. Waxaa si weyn ugu loolamay midowgii Soviet iyo Mareykanka. Soomaaliya waxa uu uga tagay loolankaasi burbur iyo kala dambeyn la'aan markii ay meesha ka baxday dowladdii militarigu ay hogaaminayeen 1991 jamhadihii kala duwanaa ee la dagaalamayayna ay yeelan waayeen aragti midaysan oo dhaafsan qoysaskooda kuna maareeyaan xaaladda kala guurka ee Soomaaliya. Xilligaasi wixii ka dambeeyay Soomaaliya waxa ay dhexda u gashay dagaalo sokeeye, waxa uu bedelay kuwa argagixiso goor dhexana oo labadaas dagaal u dhaxaysana waxay soo martay dagaal xawilaada oo ay reer galbeedku qayb ka ahaayeen. 20 sano ee ugu dambeeyay geedi socodka dibudhiska Soomaaliya ayaa marba meel soo gaarayay. 5 sano ee la soo dhaafay ciidamada ayaa ka mid ahaa waxyaabaha ugu badan ee xoogga la saarayay, kuwaasoo wax badan laga bedelay sida ay qabaan dadka la socda. Ha yeeshee dhaliilo badan ayaa loo jeedinayaa hanaanka dhismahooda oo dowlad goboleedyada qaarkood aysan ku qanacsanayn. 24 bilood ee la soo dhaafay si weyn ayay kooxaha isku haya siyaasaddu u hadal hayeen arrimaha ciidamada. Qaarkood ayaa ku dhaliilay madaxweynaha xukunka jooga inuu awood ciidan u adeegsaday xalinta dhacdooyin siyaasadeed oo ay ka mid yihiin kuwa ay qabeen mucaaradka ka soo horjeeda, waxaana ay taasi muujisay inay dhici karaan ficilo kala duwan oo ay weli u nugul yihiin ciidamada xoogga dalka. Mucaaradka qaarkood ayaa si ula kaca mararka qaar u suura xumeeya ciidanka xoogga dalka oo ay ugu yeeraan kuwa u adeego kooxda xukunka joogta. taas waxaa la aaminsan yahay in sumcaddil ku tahay xoogga amni ee Soomaaliya oo xataa mucaaradku ay qayb ka yihiin. haddana dhaliilaha mucaaradka ee awood ciidan in la adeegsaday waa arrin ka dhacday goobaha qaarkood, gaar ahaan caasimadda Soomaaliya oo bartamihii bishii February ee sanadka sii dhamaanaya ay ciidamadu rasaas ku fureen siyaasiyiin ka banaanbaxaya inuu dhammaaday muddo xileedkii sharciga ahaa ee madaxweyne Farmaajo iyo hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Toddobaadkii la soo dhaafay mar kale ayay soo laabatay dhacdada la xiriirta eedaha ciidamada loo adeegsanayo ee ah inay ku milan yihiin siyaasadda. Midowga musharaxiinta ee Muqdisho ayaa sheegay in Farmaajo isku dayay awood ciidan inuu ku qabsado xafiisyada xukuumadda xilgaarsiinta ah. Xilligaasi kadib waxaa la arkay generaallo kala duwan oo hogaaminaya militariga oo ku sugan fiilla Soomaaliya, rooblana u galbinaya xafiiskiisa. Habeenna ka hor tallaabadan madaxweyne Farmaajo waxa uu la kulmay laamaha amniga ee kala duwan. waxa uu sheegay saraakiisha ciidamada in faraha la gelin siyaasadda oo ay ka shaqeeyaan amniga 6 biloodna ay mar kulmi doonaan. dad badan ayaa isweydiin ka soo celiyay hadalka madaxweynaha iyo tallaabadii mucaarad ku sheegeen in ciidanka loo adeegsaday afgambi waxa loogu yeeray. eedda mucaaradka ka sokow dhinacooda waxa ay si cad u sheegtaan inay adeegsadaan ciidamo kale oo ka tirsan kuwa xoogga dalka oo ay sheegeen inay weerarayaan fiilla Soomaaliya ay ka soo saarayaan Farmaajo, taasoo dhankooda ka dhigaysan xataa eedda ay u jeedinayaan darafka kale ay iyana qayb ka yihiin. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawa Yusuf Raage ayaa hadal jeedin dhif iyo naadir ahayd shalay ka jeediyay Muqdisho. waxa uu daha ka fayday inaan ciidamada militariga iyo nooc kasta oo ciidan loo adeegsan karin dagaal siyaasadeed aysan ku milmi karin darafyada iska soo horjeeda. fariinta Odawa Yusuf waxa ay ahayd mid ku soo beegantay waqti muhiim ah. hogaamiyaasha mucaaradka qaarkood ayaa soo dhaweeyay, ha yeeshee fulinteeda rajo badan lagama qabo sababtoo ah taliyayaasha uu la hadlayay amarada ay qaadanayaan badanaa waa kuwa ay saameyn ku leeyihiin marxaladaha Soomaaliya oo ay u horeyso tan qabaa'ilka. dhawaqa taliya Odawa ka sokow haddana xaqiiqada bannaanka taalla waa in ciidamada xoogga dalku ay weli yihiin kuwa u baahan dib u habeyn ballaaran, gaar ahaanna aragtida siyaasadeed ee ku milan iyo kooxaysiga ku xoogan gudaha ciidanka oo aan si fudud ku dhammaan doonin ayay qabaan dadka la socda arrimaha ciidamada ee Soomaaliya. u adeegsiga siyaasadda iyo kala aragtiduwanaanshaha ee ciidamadu waxa ay dalka Soomaaliya burburisay 1990-maadkii, xilligaasoo jamhado ka soo horjeeday xukuumaddii kacaanka ay dalalka jaarka ka soo bilaabeen weeraro. xukuumaddii xilligaasina
ay qaaday beegsiga deegaano kala duwan oo dalka ah oo ay ku eedeynayso inay jamhadahaasi ka soo jeedaan. taasi waxa ay Soomaaliya dhaxal siisay 30 sano kadib halka ay maanta joogto oo wali ah meel aan wax badan dhaamin xaaladda burburka dhammaanna dhinacyadu ay ku kala tagsan yihiin isfahamka siyaasadeed iyo nooc kasta oo aragti ah oo midba midka kale aaminaadiisu ay aad u hooseyso. ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka. wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda.